saliidyada rag badan bay la qabo saxal ku haystaan saymaha naloo oday waa midana seegayn annaga iyo saleebaanadii wayna sidataay seeftii afgaal bay dul taagtaa wirta ahayd habar gidir sisaarada ku timi sigay ugaaskii sixir luu kacaankana u galay shacal saggiisii waxaa jira taas inuu gabay la yidhaahdo xidigta ama xidigta caamku ah oo aad adigu tirisay gabaygaas muxuu ahaa gabaygaas cabdi wuxuu ahaa xidigaha asalyada iyo hacaadka lagu nasiiban ka bilaabo waxaan la hadlayay nin ciidamada biliiska u madaxa burco markaa oo dagaalkii xabashida ee raamaale la isku dilay shacbigii intuu caawiyey dabeetna lagu qoonsaday oo la sasbengareeyey oo calacalaya ayaanu sunni waxa weeye waktiguna 69kii October 13keedii baa bixi marka anigu ninkaasaan dhiisinayay waxaan xidigaha casaaday iyo dayaxa caadka lagu meeshay caamadu waxay moodayaan urasho dayreede cilmi falaga way garasagii caalimka ahaaye anigaasi moorada cakiran kuwa caddayn kare isakayeelkii caawana war buu sheegay cali owe wuxuu yidhi halkuu ku cuyubnaa ciribkii soo dhaafiye caawaalka la soocaya caabud iyo gaale cashe aan dhoweyn wax isbedeli ciida fara weyn carruuraha la dhacay awliyada laga calaysiiyey carshigaaba laga soo aqbalay cadashadoodii cashe aan fogeyn wax isbedeli ciida fara weyn caaddaa rag koray baa naftigu hoos u soo celini qaanuhu dhowaan way ka kuban il dab loo qabay inay curadho khayr lihi kacaan ciidan la arkay calooliyo weyn kugu raagahayn ciidda hawqodin cagta iidhig waa ka naftigii soo cadceedsaday noo raacinayaa jih ahayd 75 oo ahayd kiisiin laydhahayd ee wax ka tilmaamaysay kafaalaha ka soo muuqda afweyne dawladdiisa waxaana ayliya siwaqroonta xumi hay suriyeyeene seetada ha ii gaabiye sabiyan laangaabe sanqaryari ha ii dilo sumaal siqya loo shareeyo sanka ha iga mudo inan gumeed loo sarrayn jiray sawaab iyo midgaan gurwadii hay sugnaadeen hadba ha ay saloosheen sidii geedka saarka ah ilaah baa sidaa loo gartay ha ay santeeyeen saliidyada rag badan bay la qabo saxal ku haystaan saymaha naloo oday waa midana seegayn annaga iyo saleebaanadii wayna sidataay seeftii afgaal bay dul taagtaa wirta ahayd habar gidir sisaarada ku timi sigay ugaaskii sixir luu kacaankana u galay shacal saggiisii warsangeli suldaan iyo ma jiro boqor la sooraay saamay dhammaantii isaaq salow colaadeen soomaalidii waxaa ka nool saaka madax gaabe wax siyaasadii loo egbaday silix ku nooshiiye markii talada habar saaraya iyo sabiye loo doortay ayay sayn caddaa iyo waxgarad timid dhaqaaqeen dhulka suuradii lagu bedelay socodna dhaabee waa wada sadcaaleen raggii soocanka ahaaye saadada cadhootay ee ibraha laga sarraysiiyey waa sixiradii bucur bacayr sananka muuqdaay inta ay sidaa tahay nin gobi soomanka ahaaye qaansalaydu ha u sacabiyeen siinka qalantaay naagaha surwaalkani mashxarad ha u safnaadeen singal iyo waxaan dhaadahayn siiri ha u tume sabaalada ha moodeen in loo sahashay meel roone saadaalada lagu gartaa subaxa sabanka caalwaaye waa waxa abaar lagu saliiday soofbardeerta ah 3 guuro waa waxaana baday shari iyo daacuun samadii daruur laguma arag sayrba weydani soodii ceelka waa waxay biyuu uga salguureen adduunyadu sidaa kuma gudhae subaxba waacay nin kastoo sallaan dheer u baxa siiba shooxigii suuldaaro wow halis ninkay rag isa seegaan sirqabahana taariikhdu way sahamin doontahay maantana siciidoo waktigu saamaxaad ma leh moorada salkeedii iyo xalaan sugay maluugtii sufurtaa madoowee dayaxa saaran baan garanay dhiig buu sidaa waqalka aad sagalka moodaay siigada dhacaysaa rag bay sababi doontahay ilaahay sidaan ka arki jiray way ku socotaay waana layna kala soocayaa subaxan dheerayn duulkii sadkoodii dhammaa sancad kala ahaaye sababada gantaalaha ka mudisaa dambaad garan ninkii cadho la soo yaamayo samirka maadlowti ninka la yidhahdo maxamed kayd gabayga aad u tirisay miinka ka kaca muxuu ahaa wakti maad ka tirisay maxaa halkee baad ka joogta markaa wuxuu ahaa maxamed kayd horta waa nin waanahay markaasaan xamar baa joogay waxay ahayd 65kii markaasuu yidhi iiga soo waran xamar ba iiga soo waran soomaalinimadu say tahay markaasaan soomaalinimada waa qawday xamar taalla markaas waxaana mugdi baan ka gacan hadiya maxamed kaydow maangala abaara iyo diri baan maax ka deeyahay geel baan maqaarka u sidaa midig ka dhiiqayn soomaali midab doorsantaan meelay leeyahay dad masbaar dhagaa kaga jiraan maqal ka tuugaay milicdaanu sheekaysanaa maalin abidkeedi hadda waxaan miliili ahaya migashiya ino mis cadaawo lagu teeriyey yar meerayaa dabadi mulkii adoogay jiraan meel dhow ka arkaaye
waxaan midigta saaraa raggii meelka la dhigay noloshuba macaan male haddaanad magac ka reebayni ma aan mahadin maantaan dhashay ii masxaradeen anigu axmed ismaaciil diiriye qaasin ah oo aan halkan ku qabanayaa tix yar oo gaaban oo gabaya oo aan tiriyey 8 bisha 1 1989 tixdaasoo ah mahadnaq aan ugu mahad celinayo niman reer Jabuutiya oo qabiilka Ciise ah oo u soo heliyey isaaqo iyo faqashtu markay isdileen isaaqo u hiilinaya dagaalkaas oo isaaqo wali libtii oo haysto gabayadaas markay soo gaareen mahad yar oo gaaban iyo tixdan ugu celinaya waxaan idhi la soo gaaray Ciise oo tixaha soo gudbinaysay geeraaradii heliye gabayadii una guuxnay hawraarta guud hiila loo galay maansadu godkii ay lahayd maydin gees marinne alla waydin garansiiyey waa gobiya caadkeed karna waa u leediin tolkiinina gargaartaane gacmihii walaalaha ahaa waa isku gurudeen gurmashadu markay ku habsamayd waa gilgilateen annana geesinimo noo tartay iyo garabku taaglayne guubaabadiinnii culaysna laga guud qali runtii ururtay dhiilaa ku timi gebi ahaantood garbahaarey iyo luuq kuwii looga gacan haasay gardarrada caddaanka ah kuwii gada ku taageeray gudabiirsidii waxa ku dhacay guuldarriyo hooge gantaal noqoy dhawaaqii ka yimi geedka Ciise ah guddoonkii ugaaskiyo raggii gooyey wow mahade geeraatihii fidiyey iyo geesiyadii raacay guurtida dalool iyo abgaal labada geesood iyagana abaal lama gadee waa gunno u taale gaban hadduu ka hadho reer isaaq waa guddoonsaday gaban hadduu ka hadho reer isaaq waa guddoonsaday guuxiinu maandhow wuxuu geystay lala yaabi geestaaba mayda guuxiini maandhow wuxuu geystay lala yaabi gaaraya cuntii cabsay gabi dhacleeyeene geestaaba maydayn inuu yaalla gacalkay inaad gaasas noo dihin tihiin garay ma reexaane baqay giilalyoodeen sabtii nugu gadaanayday gabbal baa shirshoorii u dumay guruca dheeraaye beentay giraangelin jireen soo gabaabsiday iyagaa garjiida u ahaa gacan ku dhiiglaay guutooyinkay soo waceen laga golroonay gaashaalayaashii tadhahay guduri loo loogiye googaradda naagaha raggii goosan jirayeed nimankii guryaha baadhan jiray gumuc la leebsiiye gafuur culustu noomay quturin goobtii diriireede sidii goroyo lagu qayliyey yay galalaf yaaceene abidkoodba guul lama shir tegin geeda waaqluhuye ilma gabaxdu waa saadaday kaga gadoodseene gondojiidka daya waa nafsiga galabsigiisii waxaa kale oo jirtay iyadoo gabayadooda ay aada u badnaayeen gabayada aada iyo aad dadku ay ula yaabaan waxaa jirta inaad naftaada ka wartay oo dhowr siso oo kala jaada aad ka soo jeesay waana nin dhifa ninka siduu yahay oo dhan aan garino taas dadku badanaababa waxay jecel yihiin inta wanaagsan oo inay sheegtaan laakiin adigu wax kastaba gabay ama murti ayaad ku tirsay bal gabaygaas xiise weyn ayuu u leeyahay dadka marka loo marinayo ama marka la doonayo qaasin in la barto gabaygaa qofkii maqla barasho kale uma baahna bal qaasin oo gabaygaas halkee baad ka tirisay goormaysa ahayd maxaase markaa jiray oo kugu curiyey gabaygaa waxaa jiray horta waxaanu joognay meesha la yidhaahdo laamila waxaana loo garnaqayay reere istaayadoo meesha degan markaa waxaa igu curiyey waxaan ka mid ahaa raggii qaybta wanaagsan ka qaatay sida nabadgelyada reeraha loo heshiisiin lahaa odayaashii markaan heshiiskii dhammaynada odayaali weydiiyeen waxay warniyahow dhowr nooc baanu kugu aragnaa inaad san dadka u heshiisiin karta kaamanasli nin reer magaalana kugu wey bal arrintan iska warran bay dhaha dabeeta gabaygaasaan ugu warramay nimankii waxaana dacartuba mar bay malab dhashaa aad wulsataa dhafaqe waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaali midigtayda iyo bidixda waa laba masaanoode midi waa martida soore iyo maasadaadihise midina waa midiyo xirayo boriyadii olaaho masalooyinkan antaaliyan maan dhow leeyahay nin masiiro keliyo qabsada hay malaynin mar baan ahay muddeec camalsan oon maadhista aqoonne marna macangallaayaan oo miigan baan ahay mar baan ahay nin xaaraan maqdaca aan marin jidiinkiiye marna suug nudiya baan hol baa rasuul bixin mar baan ahay murtiya baanisaba madaxda kheeraaye ay weliba muuniyo dulqaad igu majeertaanay marna reer magaal loo furan muuqan baan ahay
waxaan ahay nin midabaynaya oo maalin bay sugeen muuqaygu gelinkiiba waa muulad gooniyahe miisaanna ima saari karo nin imaleeyahay muslimka iyo gaalada dirtaba waan maqnaa aqaane malaa'igta naarta iyo jannadu way gu mulan tahay intaasoo maxadho kala kaana oo la igu maasheeyey mahmaahaan soo dulmaray doqoni waa moogi ninkiisa maado badan soo jiray ee mana soo boofay